kooxda Carwo Dhamays ayaa goolkulaagayaal 4-3 uga soo badisay kooxda Ceelaabe sidaana ku qaaday koobkii u dhaxeeyay 8 kooxood ee Ceelaabe Cup ka socday garoonka Maxamed Faarax ee magaalada Gabiley. Qaybta hore ayaa kooxda Ceelaabe ku hormartay goolka waxaana u dhaliyay Mukhtaar Hindhiso iyadoo qaybta hore ku soo dhamaatay 1-0 loona gudbay qaybta dambe ee ciyaarta. Qaybta dambe ee ciyaarta ayaa markii la isku soo laabtay kooxda Carwo Dhamays ay dhashatay goolkeeda barbaraha waxaana u dhaliyay Xamse Cabdiqaadir oo loo yaqaan CR. guud ahaan ciyaarta ku soo ilaatay 1-1 barbaro waxaana loo gudbay qaybta goolkulaagiyada iyada oo jawiga garoonkuna uu yahay mid aad u roobeysan isla markaana uu roobku aad u da'ayo. haddii aanu eegno goolkulaagayaashii kooxda Ceelaabe, Salle Cumar waa uu dhaliyay, Saacad Kookane waa uu dhaliyay, Mukhtaar Hindhiso waa uu cunay, Axmed Hiidina waa uu dhaliyay halka Cabdiraxmaan Diribana uu markaasi laga qabtay. kooxda Carwo Dhamaysna haddii aynu eegno Xamse Lambert waa uu dhaliyay, Saacad Shaacirkana waa uu dhaliyay, Xamse Saxadiid waa uu cunay, Amiin Badeecana waa uu dhaliyay iyo Xamse Cabdiqaadir CR oo isaguna u dhaliyay. sidaana waxaa goolkulaagayaal 4-3 ku soo badisay kooxda Carwo Dhamays. markana aynu wada daawano hadaladii laga soo jeediyay goobta lagu guddoonsiinayay kooxda ku guuleysatay koobka Ceelaabe Cup ee Carwo Dhamays iyo sidoo kale biladihii iyo kaalinta labaad kooxihii galay iyada oo goobta lagu qabtayna ahayd goobta loogu magac daray koobkan waa Ceelaabe Playground waa Ceelaabe Cup. aan wada daawano hadaladii halkaasi laga soo jeediyay mas'uuliyiintii koobka gacanta ku haysay garsoorkii iyo weliba qaar ka mid ah ciyaartoyda oo halkaasi hadal ka soo jeediyay. Bismillahir Rahmanir Rahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. waxaan runtii halkan ka hambalyeeynaya kooxda Carwo Dhamays oo ku guuleysatay koobkii uu qabtay Ceelaabe Playground ee ka socday garoonka Mo Faarax. waxaan leeyahay kooxda guuleysatay hambalyo kuna soo dhawaada gobolkiina. waxaan kaloo sidoo kale halkan aan iyagana ka hambalyeynaya kooxdii ku ciyaarisay magaca Ceelaabe Playground oo ahayd kooxda runtii iyada lafteedu martida loo yahay ee ka tirsaneyd gobolka. iyaga laftoodu maaha guushuun in la isku hambalyeeyo cidda guuldarrada qaatana waa in hambalyeey leedahay waayo haddii la ogolaan waayo in la kala badiyo oo cid guul qaato runtii wax macnaa ma sameynayso. sida fiican aad u ciyaarteen labada kooxood iyo qaab ciyaareedkii wanaagsanaa aad baan u soo dhaweynaa haddaanu nahay maamulka wareega waday muddada uu socday. waxaan kaloo mahad celinayaa dhammaan 6 kooxood ee ka soo boqolay caasimadda dalka iyo caasimad xigeenka oo gobolka Awdal siday waqtigooda u soo lumiyeen iyo taraaga iyo masaafada ay soo galeen aad baan dhammaantood ugu mahad celinaa. wareegan wuxuu noqday wareegii ugu xamaasada badnaa ee lagu qabto gobolka Gabiley. wareegan wuxuu ka koobnaa 8 kooxood oo 4 kooxood ay ka yimaadeen Hargeysa halka 2 kooxood ay ka yimaadeen Boorama labada kalena ay ahaayeen gobolka Gabiley. wareegan wuxuu wareegyada kale kaga duwanaa wuxuu ahaa knockout waxa markii la istaabanayay wareegan waxa isugu soo haray kama dambeystii labada kooxood ee ku kala ciyaarayay Carwo Dhamays iyo Ceelaabe Playground oo halkii qabatay wareegan annaga ka garsoor ahaan wareegan waxaanu ku dhaaranay inaanu ku qabano cadaalad kulliyo wad ka wada dhageysantiin wada arkaysan inaanu cadaalad ku qabanay. runtii tartankani annagu ka Dhamays ahaan xiisa gaar noolaha maadaama aanu caasimadda ka nimid oo gobolka la nimid oo la ciyaarana kooxo kale oo gobolka kale ka soo jeeday taas kale runtii annaga sharaf bay noo tahay. kooxda caasimadda annagu magaceedii metelna insha Allah taala wanaga alxamdulillah rabbil caalamiin koobkii hantinay marka kooxdeedan aad baan u hambalyeynaya laakiin kooxda waxa kula dardaarmayaa inaan isdhigan maadaama tartamo badan la ballan qaaday laakiin umur walba ballankeenu insha Allah taala inuu guuleysan doono. ma hadda kooxda waxa iska leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu caafimaad qabna halkan isku keenay Nabi Maxamedna inuu ku salino waxaan mahad ballaaran halkan ugu soo jeedinayaa anigu first one ee albitrayaashii hayay koobka runtii intan kubadda cagta ciyaarayay maca heer gobol ku daro 2011 baan gobolada ka qayb galay goboladii ugu horeysay Soomaaliland wali ma arag garsoor lamida oo ka cadaaladsan wali ma arag oo mid celiyay garsoorayaashii koobkan noo hayay halkan waxaan aad
kelmad dhiirigelin odhaya kooxda dhamays runtii waa laynoo ballan qaaday koobo badan laakiinse waa shuruud baa laynagu xidhay ma noqonanaa sideenii ma ahaanana mise waxba iska kiimdaley waxaan kusoo gebagabeynayaa congratulation dhamays ol markasta waxaa muhiima in la dhiirigeliyo dhalinyartu waa mustaqbalkii waddanka sportiska ama dhalinyarta kale ee sportiska fadhiisatay labadaba waxaan leeyahay insha allah ku dadaala sida cabdiraxmaan maanta uu gartay walaalkeen hadalka loo intaa ballaaran congratulation baan leeyahay kooxdii markana aynu wada daawano mulkiilaha dhigay koobkan oo runtii ay u wada mahadnaqeen dhammaan dadka halkaasi hadalada kasoo jeediyey mulkiile cabdiraxmaan oo anaguna aad iyo aad uga mahadnaqayno dhiirigelinta iyo koobkaas uu xilqaamay ee uu arkayay waqtigeedii in markaasi koobkan la dhigay aan wada daawano sidii loogu mahadnaqay iyo dadaalada ay markaasi ugula sii dardaarmeen cabdiraxmaan iyo ganacsatada la midka ahba sidaad arkaysaan ceelaabe Playground waxa weeyaan meesha aynu ku sugannahay ee xarunta madadaalada ciyaalka cabdiraxmaan runtii waa ganacsade aad u da'yar waxa uu jeclaaday oo uu mar walba door bidaa inuu bulshada uu ku celiyo wixii uu ka qaaday runtii ganacsatada inteeda kalena ganacsatada waaweyn ee kalena waxaan kula talinayaa inay sidaa cabdiraxmaan oo kale ay bulshadooda u turaan waxna ku celiyaan aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinayaa cabdiraxmaan waxa kaloon halkan ka mahadinayaa mulkiilihii inoo qabtay koobkan cabdiraxmaan oo aanu leenahay ilaahay kaa jasays iyo sida wacan eed markasta u garab taagan tahay dhalinyarta una dhiirigelinayso wareegin waxaa maalgeliyey ceelaabe Playground marka xigta waxaan u mahadnaqayaa cabdiraxmaan oo runtii koobkan soo abaabulay isagoo aan xataa aan shilin hayn ayuu haddana ahaan jiray qof dhalinyarta ku dhex jira oo kooxo badan qacad ku soo qabtay isagii maxamed xabanaba marka waxaan leeyahay dadaalka halka ka sii badi waxaanu kula talnay ganacsada kalena inay sidaas oo kale ay ku daydaan waayo wax wanaagsan waa lagu kala daydaa marka cabdiraxmaan aad baan leeyahay kulshaa baad u mahadsan tahay waxa kale mahad ballaaran halkan uga soo jeedinaya gudoomiyaha ama ownerka ceelaabe group oo runtii dhiirigeliye ama motivation ama dhaqaajiyaha dhalinyarada waayo dhalinyaradu maanta way taagan tahay waxay u baahan tahay cid dhaqaajisa runtii wasaaraddeena waynu aragnaa ee waxaan leeyahay cabdiraxmaan oo kala noqda qolada ganacsatada ahoo intaynu wasaaradii waxaan ka guurnaba aynu inagu ganacsatadeena ka sugno koobka ugu dambeynna hambalya ayaanu leenahay kooxda carwa dhamays ay ku guuleysatay koobkii 8 kooxood ee knock-out-ka ahaa garoonka maxamed faarax stadium ee magaalada Gabiley uga soconayay guud ahaan muddadii 7 cisho ahayd ee uu koobkaasi socday. Axmed Tee Qaran, wararka Malcab, magaalada Hargeysa.